maalintan iyo afkeena hooyo aan ilaashano hadduu alla idmo xitaa haddii ugu yaraan aanan wax ku soo kordhin karin kollayto bal intii awoowayaashii naga soo gaartay inaanan sii dayninoo aan haysano markaasi aanan lumin laakiin sida xaqiiqada ah inta badan hadda afkeena Soomaaliga inaan ku hadalno marka laga soo tago wuu sii lumayaa haddii aad fiiriso xafiisyadii dawladda waxa laga isticmaalayo waa afaf qalaad waxbarashadii markii labada gobol isku biireen dawladdii rayidka ahayd dhalatay ama shacabka ahayd waxay isku dayeen afka in la qoro maadaama dadka in Talyaani taqaanay oo waraaqaha Talyaani lagu daawacay qolada Ingiriis ku qoraysay si marka isfahan halka ka jiray isfahan waagaas Soomaali looga dhigo oo laga hayaa meel halku kaaga toosna hadii dhaxani ka hayso hooma waad huraysaa rabow gaalo ku hilbees annagu afafku iskuma jiraan af Soomaaligeena ama afka hooyo waa af maxay soo jireenaha oo maxay Soomaalidana runtii ku faanto